السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. welcome to Sabah official. kusoo dhawaada meel kastoo daafaad mid ka joogtaan. Ramadaan mubaarak. asxaabtayda dhan meel kastoo daafaha dunideedu dhan ka joogtaan way idin salaamayaan. qof walba xilligu yahay iyo xilligu joogo ha uu wacnaado. Sabah official oo idin leh Ramadaan mubaarak. soo dhawaada ilaahay ramadaanteeda khayr iyo baraka inagu gaarsiiyo. ilaahay caafimaad saraacan hana siiyo. ilaahay cudurka hanaga dulqaado iyo dhibaatada adduunweynihii meel kastaba waxaa affect gareeyay corona. waa la sheegay meel walba corona laga sheekeynaya, meel walba affect gareeyay. marka maanta maxay sabax idin haysaa? maanta horta ramadaanta kusoo dhawaada. waa in la cibaadaysto oo shantaada salaadood tukatid, quraankaaga akhrisatid. qof walba muslina, qof kale hadduu col ahaayeen ama aan isla hadlaynin, diinta muslimka maxay sheegaysaa walaalkaaga 3 beri ka badan caloosha ha ugu haynina. marka intii aan isla hadlin horta is cafiyaan, ha wada hadlaan. aniga ahaan sabax intii wax qalad iga gashay iyo intii aan ka galay horta cafiyo musaamax ay weydiisanayaan. talabaad maanta waxaa idin hayaa qiso ku dhacday gabadh walaashay ah. magacuna muhiim maaha. oo gabadhu waxay joogtaa adigu wadada kale joogtaa. marka gabadha Soomaaliyada maxaa ku dhacay? waa gabadh yar, waxay ahayd 25 jir bay ahayd. wiil bay 8 sano xiriir lahaayeen, wiil Soomaaliyeed oo adeerkeeda ay xiriir lahaayeen. way ku ballameen inay isguursadaan. wiilku wuxuu ka dhashay reer danyara oo iska tabar yar. marka inantuna reerkoodu waxaan reer xoolo iska leh. gabadhii maxay samaysay? wiilkii iskuul bay wada dhigan jireen, iskuulkii ka bixin jirtay. see u socotay iskuulkii uga bixinaysay, uu dhameeyey high schoolkii markii ka bixisay uu dhameeyey, jaamacaddii buu galay, uu dhameeyey. weli gabadhii wada socdaan, iyadana ka bixisa. kadib adii muddo waxaa ka soo wareegtay markuu jaamacaddii dhameeyey iyo ballantii ay soo gaadhay. waxaan rabaa inaan barto suuqa sariflaha forex exchange. way ka bixisay, weli wuu bartay. markuu suuqii fahmay, maasha allah, ilaahay tabaaraka raxmaan, muxuu ku sameeyey intii wiilkii? wuxuu ku sameeyey inuu axdigii uga baxo. waxaa la yidhi axdi beena lama galo, cad lama ilaabo. walaalkayga Soomaalida ah, gabdhuhu waa iska daciifyo. mar way kula dhalatay, mar way ku dhashay, mar way ku dhaxday, mar waaba dhashayba. marka waayaad gabadh Soomaaliyeed ugu ciyaarayso, mustaqbalkeeda u baabiinayso. qof muddo dheer 8 sano aad xiriir lahaydeen. kadib maxaa dhacay? wiilkiisa uu sugaysay, gabadhii qalbi u wacaysay, u lahayd ayagu lahaa suuqan fahmay, markuu suuqii fahmay, bismillaahi wayna lilaahi wayna raajicuun baan dhihi karnaa. naxdin ka weyn ma jirtay ila tahay. wuxuu ku sameeyey inuu inantii ballantii uga baxnaa kala guursado. maxay ku ogaatay markaa? guurkii Facebook ka aragtay inuu hebel guursaday oo loo hambalyeeyay. naxdin ka weyn ma jirtaa? gabadha Soomaaliyeed tale idinka rabtaa inaad la talisaan. maxay sameyn kartaa? maxaa la gudboon? inantii cuntadii bay ka go'day, hurda way seexan weyday, fikir, stress, frustration baa ku furmay. noloshoodii oo dhan bay nacday. hadday gabadhaas isdisho mise wax gaaraan, yaa u qolan, yaa u sababa? wiilkaas Soomaaliyeed soo maa. marka walaalahay waxaa idin leeyahay, idinla talinayaa, haddaanad gabadha mustaqbalka rabin, horta gabadh waa walaashaha ku ciyaarin. niman badan qisooyin badan baan dhageystay, gabdho badan oo dhib ka sheeganaya. niman badan waxay sameynayaan gabdhaha xiriir la yeelnay. horta ninku markuu naagta shukaansanayo waxaa la rabaa inuu isagii baa nin raba, soo moogid inuu isaga adhowba markay isguursadaan batalada reerka yaa haynaya waa isaga. marka inaanu gabadha walaashiisa oo xiriir dhex maray inaanu khiyaamin. khiyaanadu ma fiicno. ragga badanaa hadda waxay u badan yihiin danaystayaal. inay gabdhaha ku danaystaan ma fiicno. inaad gabdhaha ku danaysataan ma fiicno. gabadha ma jeclid oo jacayl dhaba uma qabtid, ma rabtid inaad guursatid, mustaqbalka ma rabtid. maxaad ugu goynaysaa marka? waay ha lu goynin gabadhaada gabadha walaashaa. maxaad ugu goynay? ha lu goynina. waa gabadh Soomaaliya, waa walaashaa. maanta waxaan waa adduunkuna waa wareegto.
sida kubaddii u wareegisaa. qof walba xilli bay u wacan tahay. maanta adigu haddaad aad guushaadii gaadhay oo wixii aad ka rabtaad ka heshay, berrito mid kale adigana kugu samaynaysa. marka maxaad walaalkaa u lagoynaysaa? gabdhaha naftigooda, wiilasha Soomaalida, wiilasha dhan, wiil kasta haddaad wiilka jeclayn ha lagoynin. wiilka haddaanad jeclayn ha lagoynin. inaad lagoysa maaha. qofka haddaanad jecel dhaba u qabin inaad lagoysid maaha. koosaba adigu haddaad isaga lagoysa adna waa lagu lagoynaya. wiilka Soomaaliga adiguna haddaad gabadh lagoysa adigana waa lagu lagoynaya. ogow taasi waa wax ku yaala. maanta iyadaad lagoysay, beri adiga lagu lagoynaya. marka iska ilaaliya, taxadar iska sameeya. Soomaalidana muslimiintoo dhan meel kastoo daafaa dunida ka joogaan waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak. iscaafiya, cafiya, musaamax. calooshan ayaa wax isugu qabanin. maxaan ku dhahay inaad walaalka xumaan ugu seexato ma fiicna. aniga ahaan wixii qalad iga galay waan cafiyey, wixii qalad iga galayna waxaan weydiisanayaa cafis. inaas cafino. waa bil Ramadaan, ha la cibaadaysto. inkastoo la yidhaahdo dadkii iskuma iman karaan, ma wada afuri karaan. walaahi subxaanallah, waa dhib bay nagu tahay annaga muslimiinta. koose waa muslimiin haddaan nahay waan isjecelnahay inaan meelkooda afurno, inaan ka baahan caawino. okay, waxaaba la yidhi meelku ma wada afuri kartaan. marka walaalkaas sidaad u caawin karto haddaad awood leeda u caawi, isna siduu reerkiisa ula afuro intaad siin karto. sadaqada hadda waqtigii lala bixi jiray, sadaqadiina la baxa maasha allah. sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.